qaybtan waa qaybtii labaad ee ka tirsanayd cashirkeennii subtract rational or fractional expressionska. waa qaybtii ka tirsanayd kala jarista rational ama fractional expressionska. qaybtanna waxaan ku baran doonaa different denominators, sida loo kala jaro rational expressionka leh lambarada hoose markay kala duwan yihiin, sida halkan aad aga jeetid oo kale. halkan sidaad aga jeetid hoose, lambarka hoose ee qaybta bidix wuxuu leeyahay x laga jaray 2, lambarka hoose ee qaybta midigna wuxuu leeyahay x lagu daray 2. marka labadan lambar kan iyo kan way kala duwan yihiin. marka si aan u kala jarno rational expressionkan waa in aan qaybta hoose ee rational expressionka ama jajabka aan isku mid ka dhignaa. marka waxaan yeelaynaa marka ugu horeysa waxaan soo helaynaa LCM-ka. marka LCM-ka labada lambar ee hoose ayaan soo helaynaa ama least common multiple-ka. marka qaybtan bidix waa sidaas, qaybta midigna waa maxay? qaybta midigna waa x lagu daray 2, qaybta midigna waa x lagu daray 2. marka factorkooda waa maxay? mar horeba wayba factor garaysan yihiinba. marka kan wuxuu noqonayaa factorkiisa x laga jaray 2, kan wuxuu noqonayaa x lagu daray 2. marka labadooda way factor garaysan yihiin. marka LCM-keena wuxuu noqonayaa ama least common multiple-ka wuxuu noqonayaa x laga jaray 2 haddana parenthesis haddana x lagu daray 2 ayuu noqonayaa. marka si aan u kala jarno rational expressionkan ama jajab xarafeedkan waa in aan lambarada hoose ee jajabka ama fractionka u ekaysiinaa LCM-keena. marka waxaan qoranaynaa marka ugu horeysa waan u ekaysiinaynaa hadda. marka x lagu daray 7 over muxuu ahaa midkaana x laga jaray 2. marka hadda si aan ugu ekaysiino lambarka hoose ugu ekaysiino maxaa la dhihi jiray LCM-keena maxaa ka maqan? bal u fiirso. dhankan midig dhanka bidix lambarkiisa hoose wuxuu haystaa x laga jaray 2 way ku jirtaa. LCM-keenana x laga jaray 2 way ku jirtaa. marka waxaa ka maqan x lagu daray 3 baa ka maqan dhankan hoose. marka waan ku dhufanaynaa x lagu daray 3 si aan hoos ugu ekaysiino LCM-keena. marka inta waxaan ku dhufanaysaa x lagu daray 3, kana kori hoos baa ku dhufanaysaa x lagu daray 3 baad ku dhufanaysaa, haddana x lagu daray 3. dhankan midigna lambarkiisa kore wuxuu ahaa x lagu daray 4 ayuu ahaa, x lagu daray 4. dhanka midigna lambarkiisa muxuu ahaa hoose x lagu daray 2 ayuu ahaa, x lagu daray 2. marka dhanka midig lambarkiisa hoose si aan ugu ekaysiino LCM-keeni maxaa ka maqan? bal u fiirsa. dhanka midiga lambarkiisa hoose wuxuu leeyahay x lagu daray 2 wuu leeyahay, LCM-keenana wuxuu leeyahay x lagu daray 2. marka waxaa ka maqan dhanka midig lambarkiisa hoose waxaa ka maqan x laga jaray 2 si uu uga ekaado LCM-keena. marka waxaan ku dhufanaynaa x laga jaray 2 aan ku dhufanaynaa kor iyo hoosba ku dhufanaynaa x laga jaray 2 iyo x laga jaray 2 baan ku dhufanaynaa. markuu sidaas yahay waxaan subinaynaa lambarada kore ayaan isku dhufanaynaa ama distributive law ayaan isticmaalaynaa, distributive law. marka hadda waxaan ka bilaabaynaa x-tan baan waxaan ku dhufanaynaa x, haddana x baan waxaan ku dhufanaynaa 3, haddana 7 baan waxaan ku dhufanaynaa x, haddana 7 baan waxaan ku dhufanaynaa 3 si aan parenthesiska aga saarno. waxaan isticmaalaynaa foiling ama qaabka la iskugu dhufan jiray trinomialska.
marka kanba waa dhex gelin karnaa haddii aad rabtid parenthesis baa dhex gelin karnaa kana parenthesis baa dhex gelin karnaa kanna waan dhex gelinaynaa kulligood si uuba u fududaataba maxaa la dhihi jiray isku dhufashada hadda marka qaybta koraa marka ugu horeysa isku dhufanaynaa qaybta kore ayaan isku dhufanaynaa x-tan waxaa ku dhuftaa x x lagu dhuftay x wuxuu noqonayaa x square ayuu noqonayaa laba xaraf markaa isku dhufanaysid exponentigooda ayaa la isku daraa marka kanoo x leh kanoo hal exponent leh iyo kanoo hal leh isku dar hal ku dar waa labo marka x oo leh exponent laba ayuu noqonayaa okay x hadda waxaad ku dhufataa 3 x lagu dhuftay 3 waa 3x weeye waa 3x hadda x waan ku dhufanay labada lambar hadda 7 ku dhufanaynaa kan iyo kanba 7 waxaad ku dhufataa x 7 lagu dhuftay x waa 7x weeye waa 7x 7 waxaad ku dhufataa 3 7 lagu dhuftay 3 waa 21 markaa saas kugu dhufatid lambarkii kore ee qaybta bidix oon isku dhufanay marka kan hoose ayaan qoranaynaa kan hoose wuxuu ahaa x kan hoose iskuma dhufanayna sidiis ayaan ku daynaynaa sababtoo ah wuxuu u ekaanayaa markaa sidiis ku daynaa LCM-kan oo ahaa sidaan rabnay inuu ekaado marka x laga jaray 2 haddana x lagu daray 2 ayuu noqonayaa marka calaamadii oo calaamadan ku darta maxaa u qortay ka jaray ba ahayd ba calaamadii ka jar ba ahayd marka hadda calaamadii ka jartay baa dhexdooda ku dhiganaynaa haddana markaasaas ugu dhigatid calaamadii ka jar ahayd ba hadda qaybta midig lambaradiisa kore ayaan isku dhufanaynaa x waxaad ku dhufataa x lagu dhuftay x waa x square way x waxaad ku dhufataa -2 x lagu dhuftay -2 waa -2x way waa -2x hadda 4 waxaad ku dhufataa x 4 lagu dhuftay x waa 4x way waa 4x 4 waxaad ku dhufataa -2 4 lagu dhuftay -2 waa -8 markuu saas yahay lambarka hoose waad qoranaysaa qaybta hoose wuxuu ahaa x laga jaray 2 haddana x lagu daray 2 orderka ma aragta lambarada waa kala badbedeli kartaa x lagu daray labada dhankan baa soo marin kartaa x laga jaray labadan dhankan baa marin kartaa maadaama isku dhufashan yihiin macno ma lahan sida loo kala dhigdhigo orderkooda ama qaabka iskugu xigxigaan marka hadda labadoodaba waan isku dhufanay marka waxaa suubinaysaa marka ugu horeysa like termska ama kuwa xarfaha isku midka ah ayaad collect garaynaysaa marka qaybta kore waa maxay xarfaha isku midkooda waa maxay marka hore waxaan dhiganaynaa mid dheer baan dhiganaynaa mid saas u dheer ama sidaan u dheer sidaas u dheer baan dhiganaynaa x-ta horta soo dhigo x-ta hadda waxaan subinaynaa waxaan collect garaynaynaa ama isku daraynaa ama kala jaraynaaba kuwa waxaan collect garaynaynaa kuwa leh xarfaha isku midka exponentiga isku midka ah qaybtaanaan ka bilaabaynaa qaybta midig lambarkiisa kore ayaan ka bilaabaynaa qaybta bidix baan ka wadaa lambarkiisa kore marka hadda 3x iyo 7x waa laba like term sababtoo ah waa laba lambar oo leh xarfo isku mid ah iyo exponent isku mid ah exponentigoodana waa hal marka hadda waan isku daraynaa 3x ku dar horta x square-ta qoro markuu ugu horeyso qaybta midig qaybta bidix x square-tiisa waan qoranay hadda 3x iyo 7x isku dar 3 lagu daray 7 waa imisa waa 10 marka 3x lagu daray 7x waa 10x way waa 10x marka saas u qoratid 20 kama haysato like term lagu daro marka waan qoranaynaa dhanka midig kiisa maxaa la jiray saas u qoranaysaa marka saas u qoratay 21da hadda calaamadii ka jirta ahayd oo labadan u dhaxaysay labada jajab u dhaxaysay dhexdooda ku qoranaysaa parenthesis baad suubsanaysaa haddana marka saas suubsatid baad waxaad collect garaynaysaa ama isku aadinaysaa
kuwa leh xarfaha isku midka ah iyo exponentiga isku midka ah ee lambarada kore ee qaybta midig marka hata x square kama lahan mid kale oo la mid ah marka waan dhiganaynaa ayadii like term kale ma lahan negative 2x iyo 4x waa laba like term sababtoo oo laba lambar oo leh xarf isku mid ah exponent isku mid ah marka waan collect garaynaynaa negative 2x ku dar 4x negative 2x lagu daray 4x waa positive 2x weeye sababtoo ah negative 2 marka ku dartid 4 waa positive 2 marka waa 2x weeye negative 2x lagu daray 4x waa 2x negative 8 ma haysato like term kale ama xaraf la mid ah marka waad qoranaysaa lambar kale oo la mid ah ku darna ama ka jarno marka hadda marka saas u qoratid parentheses kana ku qoranaysaa labada lambar hoose x minus 2 iyo x plus 2 waa laba isku mid ah marka midkood ayaa soo qaadanaysaa hoos baa ku qoranaysaa marka x minus 2 iyo x plus 2 iyo x plus 2 hoosta ku qoranaysaa marka saa ugu qoratid hadda waxaan usoo guurinaynaa dhankan baa usoo guurinaynaa waxaan subinaynaa qaybtan midig baan waxaan ka saaraynaa parentheseska marka horta dhankan aan usoo guurinaynaa dhankan waxaan dhiganaynaa lambarada oo qaybtan kore oo bidix baan dhiganaynaa saddexda wuxuu ahaa x square waan qoranay haddana waxaad qoranaysaa lambarada hoose x maxaa la dhihi jiray x plus 2 x minus 2 x minus 2 iyo x lagu daray 2 ayaad qoranaysaa hadda markaa qoratid markaa saas u qoranay waxaan subinaynaa qaybtan midig ee lambarada kore baan waxaan ka saaraynaa parentheseska marka bal ka saar parentheseska si aan naga saarno waa inaan negative 1 ku dhufanaa kuwa ku dhex jira parentheseska marka hadda negative 1 waxaad ku dhufataa x square negative 1 lagu dhuftaa x square waa negative x square way negative 1 waxaad ku dhufataa negative 2x negative 1 lagu dhuftaa negative 2x waa negative 2x way hadda negative 1 waxaad ku dhufataa negative 8 negative 1 lagu dhuftaa negative 8 waa positive 8 way markuu saan yahay marka hadda waan qoranay lambaradii kore oo dhan waana ka saarnay parentheseski dhankii midig lambaradiis kore marka hadda waxaan subinaynaa waxaan collect garaynaynaa kuwa like termska ah ee kore ayaan isku dardaraynaa kuwa kore ee qaybta kore lambaradooda kuwa xarfaha isku mid kale exponentiga isku mid kale ayaan isku daraynaa marka hadda x square iyo negative x square waa laba like term waxay leeyihiin xarfo isku mid ah iyo exponent isku mid ah marka isku dar x square lagu daray negative x square waa eber weeye sababtoo ah waa eber sababtoo ah x1 x square waxay u taagan tahay kale x square waxay la mid tahay x square waxay la mid tahay hal x square marka hal waxaad ku dartaa negative hal waa eber x square lagu daray negative x square waa eber hadda 10x iyo negative 2x isku dar 10x lagu daray negative 2x muxuu noqonayaa 8x ayuu noqonayaa 8x ayuu noqonayaa 10x lagu daray negative 2x wuxuu noqonayaa 8x 21 waxaad ku dartaa 8 21 lagu daray 8 waa 28 weeye markuu saas yahay qaybta hoosaan ka wadaa qaybta hoose waad qoranaysaa lambaradiisa qaybta hoose lambaradeeda waad qoranaysaa wuxuu ahaa x laga jaray 2 iyo x lagu daray 2 marka hadda final answerkeeni ama jawaabteeni ugu dambeysay wuxuu noqday 8x lagu daray 28 over 2 x laga jaray 2 haddana parentheses x lagu daray 2 parentheses saas ayuu noqday marka jawaabteeni ugu dambeysay waa intaas cashirkan oo ah qaybtii labaad
ee cashirkeeni isku darista rational kala jarista rational expressionka meeshaas ay ku dhamaado waxaad wadaa qaybta saddexaad ee cashirkan